معلم وكو سلامي ما حفلة سامانتا علي إذا وكو سلام هذينا إن شاء الله أنا إن شاء الله إن شاء الله علي إذا ما أنت هدا قدبتو سومالي ملا ليسا هذا ما سنتاي جاي فرديا وكتاجرو يا علي إيدو يمعلن كيسة أيام ماشى استاجن رونهانتي وحفلنا ما أنت إن نقول هلنا هذا ما سني هاي علي إيدو يمعلن كيد كي قد عاي أرد كذا أركل هذين ولا يابل هذين كواس وحين علي إيدو ولا الكمل كصوماليات وما أنت أترت معي سديد بقول يمعلن كيسة رونهانتي موجي إني دت كلا تجوعان موجي إني سومالي كلا تجوعتو لكن قرونك أنت أنكوريجا هذا وأرك كلي وأني كلي شخصي كلا سومالي أركو ومحبتو علي إيدو وأنا قلنا ترتمايو يمعلن كيسة عد كلا تو إلا هذا أرك مجرتو هايدو كعسنا بليسنا شير كريسان جنرال كان نقر إلى قادان عاوي إن القناة سبسكرايب كريسو كومنتينا عاد صوب كريسو قبل القناة فرو عاد باكو بعد سنتحي يس waxaan dagaalamo oo ordo oo boodo finally I have a ticket maanta waxaan galaynaa Stade de France waxaan support gareynaynaa walaalkeen Ali Iidow haddii uu round 1ka oo maanta ordayo oo badiyo semi-final uu tagayaa haddii uu semi-finalka badiyana wuxuu tagayaa final which is groupka ugu dambeeyo oo bilada qaadayo I hope inuu meel fog gaaro so ticketkayga aan hawato is a J so it's going to be around the corner waa ogahay meeshuu J ku yaalo maalin dhaweeda imaaday oo idii soo gudbiyey anigoo raba inaan ogaado stadiumkan iyo qaabkiisa iyo sida loo galayo so I know where is J is but I'm going to go around wax yaraan wareegayaa saa hore idiin sheegay maxal yar ku dhiishana ku saaxiiso marka xogaa yar kuleela jiray aad uu qolku u qaboobaa marka xogaa qabow saa kala soo kacay xogaa waa hergibsanahay codkayga xitaa waa ka dareemaysin marka bina caafimaado anoo xanuunsan oo qandhay hayso kaniiniya ku socdaa walaa anoo qandhay hayso waxaan ka fadhi waayey ama u jiifo waayo waxay tahay inaan calankayga iyo walaalkay Soomaaliyeed aan support gareeyo inaan dalkayga aan joogo runtii waxaan rabaa inaan u wareego oo geeska gees aan u soo maro intaan gudaha galin waxaan rabaa inaan ogaado that is where I'm going to go there's a J so meeshaasaan leeyahay halkaas ka xaroona J ba mar raba inaan xaroodo waxaan rabaa inaan garoonka ka fiiriyo in shakhsi Soomaali uu joogo saa idii sheegay magaaladan iyo xiriirkaba wax ay la xiriireen ma jirto cid la hadla ma jirto even safaaradda cid la hadasho ma jirto saa hore idinku sheegay waxaan rabaa inaan ogaado in aniga kaliya aan ahay shakhsiga Soomaaliya ee meeshan joogo iyo inay dad kale jiraan waxaan rabaa inaan wareego oo aan geesaha soo maro stadiumka ku soo wareega hal mar si aan u ogaado inaan arko bal in
Soomaali kaleeto oo supporter oo walaalkeen support garanayso ama dalkooda support garanaya inay jiraan saa u jeedaan dad kala duwan oo adduunka joogo qof walba calankiisa wata ani mid kaliya aan xoogaa ka gaari waayay waa calankii Soomaaliya inaan soo qaato aad uga xumahay waa ka ciishooday waa isku dayay waxaan rabaa meeshan dhinacayga waxaa joogo ciyaartooydii rabta inay ordo meesha isku kulleynayaan waxaan rabaa walaalkii Cali Iidow inuu meeshan joogo inaan arko so jamkii ciyaarihii way bilowdeen gudaha rabaa inaan galo ma rabo inaan daaho 800 mitir waxaa la ordayaa 6 saac waqtiyaan haystaa waxaan lacagta u soo bixiyay waa walaalkii inaan arko run ahaantii waxaan arkaa u malaynaa tababarihiisa so I'm gonna go there that is the tababaraha Soomaaliya so haddii aa u jeedaan yarkii tababaraya waa kaas Cali Iidow kama foga u malaynaa meelahan inuu joogaan jeclahay saa u jeedaan ninka maxaa tuutaha ama sport dresska buluuga wato waa tababaraha Cali Iidow I think Cali Iidow inuu meelahaas taagan yahay marka kama fogo waa ka xagga u sii socda sida arkaysaan marka waxaan rabaa inaan helo Cali Iidow let me go place that I can see closely Cali Iidow meelahan kama fogo groupka Soomaalida xiriirka Olombigada yarkaas kaliya tababaro u ah saa u jeedaan dareeska calanka buluuga Soomaaliya tuutaha ah wato waa dareeska ay ku mareen maalintii openingka meelahan kama fogo Cali Iidow waa kaas saa u jeedaan macalinka Cali Iidow halkaas maraya so there is macalinka Cali Iidow Can you see anyone, Semi? saa u jeedaan waa kaas halkaas marayo waxaan raadinayaa in aan Cali Iidow uu la kulmo ama uu la istaago macalinkiisa inaan arko ilaa hadda uma jeedno so Cali Iidow meelahan kama fogo waxaa isku dayaa inaan idin tuso in uu cid kaleeta ay la joogto aanan macalinka ahayn so hadda waxaan u jeedno waa macalinka Cali Iidow telefoonu ku hadlooyaa cidduu la xiriiraa ma garan karo laakiin waa macalinkii Cali Iidow Cali Iidowna meelahan kama fogo so run ahaantii maanta waxaan sugno waa in aan Cali Iidow guul ka sugno aan ilaahay u barino aan u duceyno inuu Cali Iidow noo keeno guul aan ku farxno asagana ay u noqoto maalin aad u qurux badan uu dalkiisa iyo dadkiisa iyo dadnimadiisa uu ku faano macalin maxaa filaysaa maanta guul ma filaysaa guul ilaa hadda ma ii jeedo meel aan kala hadlayo ma garan karo I think Cali Iidow inuu yahay wiilkaas macalin waa ku salaamay maxaa filaysaa maanta Cali Iidow waa ku salaamay adigana insha Allah ani insha Allah Cali Iidow maanta haddaa gudubto Soomaalida ma la hadlaysaa aad u mahadsan tahay jeeyaan fadhiya oo ku taageeraya Cali Iidow iyo macalinkiisa ayaa meeshaas taagan run ahaantii waxaan filaynaa maanta in aan guul helno aad u mahadsan yahay Cali Iidow macalinka dhididka iga dhacay orodka hadda arki lahaydeen way la yaabi lahaydeen kuwaas waxa ay Cali Iidow walaalkeen wiilka Soomaaliyeed oo maanta u tartamaya 800 iyo macalinkiisa run ahaantii
ma ogi inay dad kaleeta joogaan, ma ogi inay Soomaali kaleeta joogto, laakiin garoonka inta aan ku wareegaya hadda waxaan arkay keliya waa aniga keligay. Shakhsigii kaleeta ee Soomaaliya aan arko waa Maxamed Cali Iidow oo annaga noo tartamayo iyo macallinkiisa. Cid kaleeto ilaa hadda aan arkay ma jirto. run ahaantii waxaan rabaa hal mar inaan garoonka ku soo wareego, inaan hal mar garoonka ku soo wareego aan fiiriyo cid kaleeto bal Soomaaliya inay joogto. Ma rabo inaan hordhaco, ma rabo inaan dadkayga been ka sheego, ma rabo inaan wax qalada faafiyo, laakiin run ahaantii magaalada xali markaa ku wareegay waxaan soo indhiindhiyey bal cid baxaysa inaan arko, cid taageeraysa inaan arko. ballantii safaaradda ay nala gashay run ahaantii ma ayna ka soo bixin, mana aha cid u diyaar garaysan, mana arkin cid rabta in ay wiilkan Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeedba taageerto. waxaan aad ugu faraxsanahay in aan salaamay ama aan arkay Cali Iidow iyo macallinkiisa. It make me very excited. So right now dhiiggayga shucuurteyda way kacday. aad waxaan ugu faraxsanahay inaan suburgareeyo, waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta meeshaan taaganahay. So ilaa hadda cid kaleeta aan u jeedo ma jiro. garoonka hal mar ku soo wareegaynaa, kabacdi waxaan geli doonaa gudaha, waxaan iska daawanaynaa ciyaaraha kaleeto si aan u sugno Cali Iidow iyo orodkiisa oo 800. saan hore idinkugu sheegay Cali Iidow wuxuu ordaya 800. haddii uu roundkan koowaad gudbo wuxuu u gudbi doonaa quarter finalka ama semi finalka. kabacdi haddii uu semi finalka badiyana wuxuu u gudbi doonaa kama dambeynta oo ah finalka, taasoo groupka ugu dambayso ay u rangareynayaan in ay medalka qaataan. So maanta is about dagaalka koowaad, maanta is about in uu awooddiisa dhan dhigo. waa ka xumahay inuu suboor badan haysan, waa ka xumahay inuusan Soomaali badan oo maanta taageerayso aysan jirin. saan u malaynaya ilaa hadda uma jeedi wax organisation ama group is abaabul uma jeedi. So ma rabo inaan hordhaco, laakiin gebagabada videogeena ku arki doontaa haddii ay lacala jirto wax Soomaaliya oo support ah ama taageerayaal ah oo Cali Iidow iyo calanka Soomaaliyeed taageeraya. I'm so excited wallahi billah to be here. I'm so excited inaan maanta 200 euro ku bixiyo ticket. I'm so excited inaan taageera. Thank you. inaan 200 euro ku bixiyo inaan walaalka ku support gareeyo. aad ugu faraxsanahay. maaha waxaan ka xumaan doono haddii uu laga badiyo ama haddii uu badiba, labadaba ku faraxsanaan doonaa in aan calankayga iyo wiilka Soomaalida walaalkayga aan garab istaagay. run ahaantii ha ii qabanina haddii hadallada aan isku dhex daro. I'm so excited to be here. aad ugu faraxsanahay inaan meeshaan joogo, aad ugu faraxsanahay inaan calankayga iyo walaalkay Soomaaliyeed aan taageero, aad ugu faraxsanahay inaan ka soo muuqdo meeshaan, in muwaadinka keliya Soomaaliyeed waddankiisa taageera aan noqdo. hal jeer basaan geli doonaa, kabacdi gudahan ku xaroon doonaa hadduu ilaa yiraahdo. tigidka aan haysto waa J waxay ku taalaa dhanka kaleeto ee stadiumka. hadda waxaan joogaa T ama ta. J-na waa garan kartaa alfabeetada, waa oppositekeeda. so marka dhankaas kaleetaan tegi doona hadduu ilaa yiraahdo. so let's go. में बाल का है। Vous pouvez entrer par n'importe quelle porte, welcome by any gate, any gate.
passer par là. You cannot jump here behind the gate. Bonjour, s'il vous plaît. Any gate. Vous pouvez utiliser n'importe quelle porte pour entrer dans le stade. I have a J. J, you can enter right, and then reach J by winning side. Okay. Okay? waxaan gelaynaa gudaha, so I don't know, kaamarada waa dami doonaa marka gudaha galo ayaa kaamarada soo bixinaya. I don't know in la ii ogolaanayo inaan maxaato kaamarada intaan ka gelayo la ii ogolaanayo. So let me go turn off the camera so I can find my ticket. So where is my ticket? Ticket kega. I have my ticket. Bonjour. You just want to scan your ticket here. Bienvenue. Thank you. Merci. Yeah, you want to see my ball head? Yeah, go ahead. Walibara Sojud. Thank you. Can I put in my hair? Yeah, this is my hair. Thank you. Guys, we're so good. My camera didn't make it. So let's keep running it. But I hope you know you have maqlaysan. So let's be excited. But X so great. So I have to find my seat is J. So I have to walk up to the J. So inside the stadium. So I don't know if gudaha ka socon karo oo inta ka socon karo. So waxaan isku dayaa inaan inta ka socdo till I J da tago. So marka guys, let me see. Guys, maanta waxaa kaleeto oo ordayo walaalkan Djibouti oo asaga naftigiisa taageero nooga baahan. I think team Djibouti inay joogaan waxaan arkay ilaa 2 qofood 3 qofood oo Djiboutiana. So wala kala wadanisan yahay, aad loo kala wadanisan yahay. Marka dadka isku mid maaha. Djibouti calankooda iyo dadnimadooda magaaladan Paris way degan yihiin. So I believe in aad uga muuqanayaan dadka isku dhiig maaha, wadanimada waa loo kala dhashaa. Marka runaantii ma u malaynayo in aan cid Soomaaliya, because waxaan meeshaan uga soo galo waxay tahay waxaan ku tagayaa lug, waxaan arkayaa geed walbo aan gudbo oo dad Soomaaliya ay taagan yihiin ama ka soo galayaan haddii lacal ay jirto. Marka ma u malaynayo inay jirto, mana u jeedo ilaa hadda ma arkin. Waxaan arkay waxay ahayd gudahiisii galayaan 2 qofood oo I think inay gabar iyo wiil ahaayeen oo calanka Djibouti wato oo X gale. So ma ka daba tegi karin. So I hope inaan meelaha kale ku arko. So I'm sorry guys, waxa waaye aad oo calool xumaa, aad u adag tahay in maanta meeshaan mayamowga keligiis oo ka muuqdo oo cid kaleeta aan u jeedin. Waxaa kaleeto aad aan ula yaabaya haddii maanta ay ahaa lahayd wadamada kaleeto aan ku lahayn safaaradda. Waxyaalaha safaaradda ay qabanqaabiso ay ka fikirto waa dhisidda qaranka. Waxay matalayso ay u joogto wadankan waa qaranka Soomaaliyeed. Waxyaalahan oo kaleeto waa magaca qaranka in la maamuuso. Waxyaalaha ay safaaradda looga baahan yahay inay garab istaagto. Marka waxa aad uga xumahay iyadoo magaaladan safiir oo noo fadhiyo oo safaarad ku leenahay maantana ciyaaraha adduunka laga maamuuso ku ugu waaweyn magaaladan Paris ka dhacayso. Haddana wiil Soomaaliyeed oo ordayo in maanta ayna safaaradda ka muuqanin, aynan xitaa isku dayin in ay Soomaali isku keento si niyadda loogu dhiso wiilkan Soomaaliyeed ee go'aansaday inuu dalkiisa u ordo. Marka yaanu gudbin J
that's B C so weli waaye marka aada uga xumahay way itaabatay run ahaantii saan hore idinkugu sheegana ma raba meesha magac inaan ku xuso saan hore idinkugu sheego video aan soo duubay aad ka aragteen annagii iyo safaaradda shakhsi ka socdo waxaa la kulanay guddiga olombigada guddoomiyaha iyo la taliyihiisa inuu yahay ama maxay presidentaha olombigada Soomaaliyeed inuu shakhsigaas ahaa waxaan ka codsanay inaan barnaamij hore dhaca sameeyno in aan Soomaalida abaabulno in tigidh la gado dadka aan awoodgareyn karin ilaa iyo dhowr qofood 30 gaarayso la isku keeno si loo support gareeyo calamo la qaato which aniga aad iga farxisay oo aan excited noqday la soo booday vloggii labaad aan duubay aan soo geliyey kabacdi waxaa dhacay in nin walbo caadadii Soomaalida iyo dhaqankii lagu yaqaanay dawladda amaba waxa dawlad u shaqeeyo sanadkan ay iska saxdeen aynan dhag jalaq u siinin intaas aan keligii orday telefoon diray inaan guddiga la xiriir isku day oo suurtagal weysina guddiga telefoon ay iga qabtaan marka runaantii aad uga xumaa ma rabo inaan meesha calaacal badan ka soo muujiyo ma rabo inaan dadku shakhsiyaad ku dhaliilo ma rabo inaan safaaradeyda dhaliilo oo safaaradda Soomaaliyeed waay laakiin run ahaantii aad uga xumaaday muruga ugu baartay calool xumo ugu baartay wax kale aan ka qaban karo ma leh inta awoodo waxay tahay in aan aniga keligay soo istaago aniga keligay tigid soo goosto whatever cost me inta oo qiimihiisa yahay inaan ku gato si aan u support gareeyo calanka buluuga oo meeshaas markuu wiilka Soomaaliyeed oo ordaayo la soo saarayo iyo of course walaalkay inaan support gareeyo so tiina waa ka dhabeeyay ilaahay wuu ii suurtageliyay alxamdulillah shukr rabbil caalamiin right now garoonka ku dhex jira jay watana so I have to find my seat I have to go inside guys that's the exciting moment waqtiga aan sugayay in aan maxato J710 and this one is J5621 I haysta so J21 oo baahnay this J10 this K so it's J1234 so this K oh yeah J waxaa haysta kheelada aad u badan tahay garoonka afkiisa hore imaanay so let me find out my ticket it's J621 I think I have to go upstairs Guys, this is my first time. I'm so excited. Waa markii ugu horeysay ee ciyaar ever Olympic la qabanayo aan gudaha u soo galo. Waxay noqotay Olympic Paris 2024. waxaana aad ugu faraxsanahay inaan noqday shakhsiga kaliya ee maanta garoonka ka dhex muuqda ee taageera walaalkiis Ali Ido Hassan. Let's go.